waa xilli hore oo aroor ah sida aad ka dheehan kartaan wadooyinka ama zaxmad yarida xaafadda Islii oo caan ku ah mashquul aad u fara badan. Waxaan u baahnay inaan wax ka ogaano xaaladda nololeed ee Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Nairobi. Soomaalida ayaa ka mid ah bulshooyinka ugu kobaca badan deegaameysiga iyo nolosha caasimadnimo ee Nairobi, waana qowmiyad door ah marka loo fiiriyo kaalinta ay kaga jiraan ganacsiga dalka Kenya. Soomaalida waxay ka noqdeen dalkani Kenya tilmaam iyo kuwa la tirsado, iyadoo oo hadda mudnaan lagu siiyay sida ay u bedeleen nolosha jiilka Kenyaanka aan Soomaalida ahayn ee ku dhaqan meelaha ay kaga badan yihiin dalka. dhan kastaba markaad dhex timaado gudaha xaafadda Islii waxaa ku muuqanaya sida natiijada horumar kale ee ay gaareen Soomaalida kolkii ay waqti iyo maalba geliyeen dalka Kenya. inkasta oo Soomaalida Kenya ay ka cawdaan gacan bidixayn ay kala kulmaan dawladda, haddana wax badan ayaad arkaysaa oo ay dawladdu ka qabatay baaqyadii isa soo tareeyay marba marka ka dambaysa. Cukaash Sheekh Maxamed waa ganacsade ku nool xaafadda Islii, wuxuuna sharaxayaa marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray intii uu ku noolaa halkan iyo guud ahaanba nolosha Soomaalida ku dhaqan Nairobi. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Magacayga waa Cukaash Sheekh Maxamed, kana mid ah ganacsada yaryar ee ku nool magaalada Nairobi. ganacsiga kow waxaan ka soo bilaabay markii horeysay waxaan soo galay magaalada Nairobi gaar ahaan Islii 2012 waxaan ahaa shaqaale oo nin ma u shaqayn jiray muddo kadib 2013 insha Allah wuxuu Ilaahay u guulay in aan meel aan leeyahay aan furto oo aniga la ii shaqeeyo markii dambe taayada waxaan ku gaarnay daacadnimo iyo mataqaanaa isgarab istaag Soomaali lafta iskalmeynayso ganacsiga siisa wuxuu leeyahay faa'iidooyin fara badan haddii adiga aad abuurato oo haba yaraado ganacsigiisa mataqaanaa ma laha ayb ma lahan haddaad noqoto baalashada ganacsada tahay haddii aad tahay mataqaanaa qof mataqaanaa gaargacan wado waa ganacsigu iska mid yahay ganacsigu fara badan yahay marka Soomaalida laakiin waxay u yaqaanaan ganacsiga kaliya in dukaan weyn aad ka soo jeedo mataqaanaa aad leedahay taa idan mataqaanaa wax aqli gal ma noqon karto qof kasta meel baabash u joogta waa tabaqada dhexe iyo sare iyo hoose marka adoon hoose soo bilaabay sare ma tii kartid ma ku horeysan hoos ka soo bilawdo marka aniga ahaantay kow waxaan ka soo bilaabay hoos baan ka soo bilaabay shaqaalanimo markii dambe waxaan gaaray heer aniga mataqaanaa aan meel aan furtay. Cabdinaasir Dhuubow ayaa sheegay dhankiisa in ganacsatada Soomaaliyeed ay door muuqda ka qaataan nolosha dhalinyarada xaafadda Islii maadaama aysan jirin shaqo dawladeed oo ay dhalinyarada intooda badan qabtaan balse shaqadan ay ku bixiyaan ehelnimo. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdinaasir Dhuubow Axmed, waxaan ku noolahay dalka Kenya qaasatan magaalada Nairobi. Runaantii Bashiiro wada adiga weydiisay caqabadooyinka Nairobi iyo dhalinyarada haysto waxaa ka mid ah dhalinyarada inta badan waa laba u kala baxeen nin nolosha ka dhacay iyo nin kartidiisa isticmaalaya. runaantii Nairobi badanaa dhalinyarada waxay ka shaqeeyaan dukaamo iyo waxaas ka shaqeeyaan caqabadooyinkaas oo iska jiraan dhalinyaradana meeshan waxay u baahan shaqadan eegin waxa la isku geeyaa habartay iyo balaaj nooc kale la isku geeyaa. runaantii aad aan ugu xumahay dhalinyarada nolosha ka dhacday waxaan dhihi lahaa nolosha waxaa haystaa waqti aad ku bedesho nolosha adiga askari daway ka dhacaysaa laakiin aad is xoojiso oo aad kartida isticmaasho nolosha kor u soo qaadaysaa. haddadan aan joogno waxaan leeyahay dhowr meel baad mataqaanaa ay shaqeysa meel fruit oo cabitaanka waxa lagu sameeyo iyo meel makhaayad dad badan oo waxa hadda shaqeynayo mataqaanaa Soomaaliyeed baa ila shaqeeyo oo iyaga laftooda irsaaqada mataqaanaa ay ka raadsada. waan ka ganacsaday meel ahaan Nairobi waxaan tagay wadanka Mozambique ilaa 2 sano mataqaanaa ayaan joogay isaga laftiisa shaqaalan ku bilaabay markii horeysay ilaa 6 bilood baan shaqaale aan ahaa kadibna meel makhaayad baan ka furay oo xogaa aan waday ilaa markii dambe 2017 yaan ka soo wareegay oo u soo wareegay magaalada Nairobi si aan meeshan iyada ee Soomaalida u badan tahay ee wadanka annaga mataqaanaa aan si gaar ah markii laga soo tago Soomaaliya inoo soo dhaweeyay aan ka mid nahay aan ganacsiga mataqaanaa u kobciyo aan kaga shaqeysan karo taayada ay u kalaftay inaan wadanka imaado ganacsi baan ka sameeyay alxamdulillah waan ku fiicannahay dad badan mataqaanaa way shaqeeyaan. dhalinyarada horta Nairobi waa nin shaqeysto oo dukaan iyo waxa ka shaqeeyo iyo nin laga soo diro dibadda lacag marka dadka dibadda lacagta laga soo diro iyo dadka shaqeysta inta ka soo hartay waa dad dhalinyaro nolosha ka dhaceen Nairobina badanaa lisma caawiyo ninka kale u naxay malaan dhalinyarada waxaan dhihi lahaa qofka walaalka oo dhulka gacanta ka taalo inaad garab qabato isku day aad wax haysato maanta ninkaan wax haysanin maanta ninka wax haysta bari wax la noqonayaa
marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada waxyaalaha haysato mase shaqo abuurka u samayn karta dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Kenya khaasatan Nairobi ku nool waxaan dhihi lahaa dhalinyarada walaaladiin ee nolosha ka dhacay inaad investment fiican u samayn kartaan isku day runtii ganacsiyada mataqaanaa way kala duwan yihiin haddii aan tusaale u soo qaato hadda markii waddanka Mozambique aan joogi jirnay Soomaalida sideeda waa isku businesska way wadaagaan hal business ay qaataan hal ganacsi waxa kamid ah waxay samayn jireen makhaayadaha iyo waxay ganacsan jireen iyo alaabtan mataqaanaa maacuunta iyo waxyaalahaas iyo ganacsan jireen halka Nairobi markii la imaadayna ganacsiga asna mataqaanaa Soomaalida waxay u badan tahay dharka ka ganacsadaan waxaa soo raaco oo mataqaanaa aan saa u sii badnayn igana makhaayadaha marka Soomaalida ganacsiga uu isku egyahay marka waxa fiican la ganacsi in la yar kala duwo xogaa oo markuu ninkan uu shaati ganacsanay aad sirwaalka ganacsato markuu ninkan ka ganacsanay makhaayad adiga ka ganacsata muxuu ahaa baabuurta ninba oo si dadka isku baahdaan laakiin ganacsiga uu isku mid u noqdo xogaa mataqaanaa wuxuu keenayaa ciriiri fara badan in mataqaanaa ganacsiga hoos u dhaco mataqaanaa ay imaanayso micnaheedu ma aha ayakana gabdhaha inaan iloobay markaan leeyahay dhalinyaro gabdhahana waxaa jira kuwa saas oo kaleete oo dhalinyarada shaqaysta mase nolosha ka dhacsan ka raadinayaan wax gabdhahana waxaan dhihi lahaa intaan nin rag wuxuu soo shaqeeyay mase aa ku tiirsanaan lahayd nin rag wuxuu soo shaxaaday adi naftigaada jaanis waxaa haysataa aa ku shaqaysan karto karti waa leedahay gabar waa tahay Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa gabdhaha sidoo kaleete in ayakana noloshaas ay ka baxaan wiilasha shaxaadkii waxaa weydiisanayaan waxaa kaloo ka mid ah wiilasha ininkana dhalinyarada nolosha ka dhacda waxaan rabaa inaan nigu baraarujiyo nolosha waa dhisan kartaan ee nolosha dhista nolosha Nairobi markii loo fiiriyo dalkeena way aad u adag tahay marka GBL TV aad aan u faraxsanahay inaad wareysi dhalinyarada xageeda ay qaadaan aad u maasantiin nolosha Nairobi markii dhan laga fiiriyo way adag tahay maxaa yeelay guriga horta waa qaali maciishadii waa qaali wax dhan wada way adag yihiin marka qof aan xogaa jibkiisa aansan u buurneen kuma noolaan karo marka waxa arkaysaa waliba hadda islii in ganacsiga uu kor u sikacayo waxaan u wacan guriyihii oo dhismihii batay oo dadkii mataqaanaa qurbaha ka imaanayaan isbedel badan baa mataqaanaa ayaa ku imaaday marka isbedelka ku imaadayba maciishadii mataqaanaa ayaa kor u kacday guriyihii waxa arkaysaa gurigi lagu kiran jiray 30 kun lagu kiran jiray waag hore in maanta 70 kun 80 kun mataqaanaa lagu kiran 3 qol iyo fadhi marka taas waxay keentay maciishadii in ay kacdo oo qof miskiin xataa uu ku noolaan karin marka laakiin Soomaalida horumar badan ka sameeyaan islii gaar ahaan Nairobi gaar ahaan islii shukran Soomaalida ayaa ganacsiyo kala duwan ku haysata Nairobi sida dukaamada raashinka dharka iyo waliba hoolalka lagu dhigto aroosyada ayadoo caqabado ay kala kulmaan marka ay dadka Soomaaliyeed dalkani yimaadaan sida uu sharaxay Maxamed Murshid bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Murshid Maxamed waxaan ka mid ahay ganacsatada ku nool magaalada Nairobi waxaan ka ganacsanaa oon ka shaqaysanaa hoolalka aroosyada lagu qabto iyo loojada la seexdo oo albeerkooyinka wax Soomaalidu yaqaanaan marka haddaan ka hadlo dhinaca shaqada ama nolosha magaalada Nairobi dhalinyaradu caqabado badan baa soo wajahda tu ka bedelantii aan waddankeennii aan ku haysanay soo waxaa jirta shaqo la'aan waxaa jirta maadaama aynu dawlad iyo wax loo shaqeeyo waxba jirin dadka dhibaatooyin badan oo xagga nolosha soo wajahda qofku markuu dhulkeena ka yimaado meelaha yimaado caqabadaha ka hor yimaado waxa kamid oo waxba kula qabsan karin dadkii luqada kale waddan kale waa luqadii iyo wixii baa dib ku noqonaysa inay shaqaystaanna way rabaan marka caqabado badan oo shaqada ka hor istaagaysa oo dhankaas ku saabsanna waa ay u keenaysaa shaqo la'aanta meesha ka jirta ganacsatada meesha joogtana run ahaantii dhalinyarada ma garab qabtaan wixii wuxuu iska noqday nin walba iyo qaraabadii ninka qaraabo meesha ku haysan dhib badan buu iyo face gareynaya nolosha dhan ee Nairobi Soomaali ahaanna waxay ku saabsan tahay waa ganacsi uun sida dukaamada agentiyada travel agentska hoolalkan aroosyada anagu aan haysano qaar khudaar ka ganacsada electronic waana xarunta ganacsiga ee East Africa meeshan oo ganacsi aad u weyn baa run ahaantii kala socda Bashir Daahir Balal Nairobi